Ugaas Salebaan Aadan Axmed Ugaas Mujaahir oo kamid ah Madax Dhaqameedka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn iyo Dowlad Deegaanka Somalida Gaar ahaana Beesha jidwaaq absame Abaskuul ee Bari iyo Galbeed ayaa baaq nabadeed u diray laba beelood oo dagaal ku dhex maray degmada Adhicadeeye oo ka tirsan gobolka Sool. Ugaas Mujaahir ayaa ugu baaqay isimada dhaqanka, culimada waxgaradka iyo qaybaha bulshada ee gobolada SSC inay deminta dagaalkaasi laga wada qayb qaato isla markaana loo istaago sidii loo joojin lahaa dhiig dambe oo qubta. Ugaas Mujaahir oo goor dhaweyd warbaahinta soo gaarsiiyay bayaan baaq nabadeed wuxuuna kula taliyay labada beelood ee dirirtu dhex martay inay xabadda joojiyaan isla markaana geedka wada hadalka ee dhaqanka ku xalistaan wixii u tunah ee ka dhaxaysa. bishii 17-17keedii dhacdadii ka dhacday gobolka Sool khaasatan magaalada Adhicadeeye dhacdadaasaan rabaa inaan baaq ka jeediyo insha Allah taala. marka hore dhacdada halkaa ka dhacday waa cambaaraynayaa. dhacdo aad iyo aad u xanuun kulul oo aad iyo aad u fool xun bay ahayd. waa cambaaraynayaa wixii ku dhintay oo maamadayda ugu horeyso qaaliga ahayd ilaahay ha u naxariiso raxmatan waasica. wixii ku dhaawacmay meeshaas oo maamadaydii labaad dhaawacaa ku jirto dhammaantood wixii dhintayna Allah u naxariisto, wixii dhaawacana ilaahay tabaaraka wa tacaala ha caafiyo ha ka kiciyo. qodobkaas waa qodobka ii raaca waxa weeye baaq guud oo nabadgelyo baan jeedinayaa guud ahaanba madaqada khaasatan gobolada waqooyi si gaara gobolka Sool iyo Sanaag Bari gobolka Cayn colaad beeleedkaa soo laalaabtay ee qabaa'ilka dadka walaalaha ee soo noqnoqonaya si guud waxaan ugu baaqayaa in laga waantoomo colaadahaas aan faa'iidada lahayn, halaaga iyo foolxumada weyna xambaarsan. waxaan leeyahay nabadgelyada ha la ilaaliyo oo nabadgelyada ha la qaato. nabadgelya naas lamaale leh baa lagu mahmaahaa. colaada waa laga ducaystaa, ilaahay baa laga magan galaa. meel colaadi ka jirto horumar iyo nabadgelyo iyo istiqraar iyo isdhexgal iyo walaaltinimo midna laga heli maayo meel mar haddii colaadi jirto. marka waxayna deeqa waa nabadgelyadeennii horaha lagu soo dabaalo guud ahaan gobolada waqooyi khaasatan 3 gobol ee aan tilmaamay ummadda ku dhaqan. intaa waxaa ii raacda beesha anigoo ku hadlaya beelaha absame kumada afkooda ee gobolka Sool iyo Sanaag iyo Cayn eeriyada gobolada waqooyi guud ahaanba dhacdada na kala gaadhay nakay reer fiqishini magaalada Adhicadeeye heshiis baa laga qaatay baan maqlay labada dhinac odayaasha reer fiqishini odayaasha beelaha absame kumada khaasatan beelweynta jidwaaq dhacdadaas soo gaadhay heshiis baa laga gaadhay baa la yidhi. waa soo dhaweynaya anigoo Ugaas Mujaahir ahna ugaaska maamadiisu halkaa ku geeriyootay. waxaan leeyahay nabadgelyada ha la adkeeyo, heshiiskaasuna sida loo qaatay ha u fulo. heshiisku sida loo qaatay ha u fulo labada dhinacba. beelweynta ama boqortooyada jidwaaq ee dhibaatadu soo gaadhay heshiiska ay la galeen beesha reer fiqishini siday tahay ha u fuliyeenoo nabadgelyada ha qaateen. beesha reer fiqishina aad waxaan ugu baaqayaa inayna soo dedejiyaan oo soo dhammaystiraan heshiiska ay qaateen ama dhaawaca iyo dhimashada ay runtii ka dhacday xaggooda inay soo dedejiyaan oo siday tahay usoo dhammaystiraan ayaan ku baaqayaa. waana u hambalyeynayaa labada dhinac odayaasha. waxaan leeyahay nabadgelyada iyo isdhexgalka iyo walaaltinimada iyo derisnimada taasi ayna anfacda qadar lahu maa shaa facal. ha la adkeeyo hana lagu dhaqmo heshiiska. uufuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula. sidaasaa qur-aanku sheegayaa. taasaan soo dhaweynayaa insha allahu tacaala. wada noolaanshaha iyo walaaltinimada iyo ehelnimaduna sideedii caadiga ahayd ha ku soo noqoto. waa beesha reer fiqishini iyo beelweynta jidwaaq khaasatanna beesha Abaskuul dhacdada ku dhacday. qodobkaas waa qodobka halkaasaan kaga gudbay. qodobka labaad waxaan uga gudbayaa beesha reer cilmi iyo beesha reer fiqishini colaadoodaa soo noqnoqotay muddada dheerna soo taxnayd in iyagu qudhoodu nabadgelyo arrintaa lagu dhammeeyo
nabadgelyadana ay qaataan labada darafba colaad wiil baa ku dhantee wiil kuma dhasho wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho labada darafa nabadgelyada u wanaagsan aakhire iyo adduunkaba saasaan ku baaqayaa inay labada qabiilba ee walaalaha ee ay qaataan nabadgelyada madaqadana aynu ku soo dabaalno si ilaahay iyo rasuulkiisuba raalli ka yahay oo nabadgelyo ah walaaltinimo inama almu'minuuna ikhwa sidaas baan ku baaqi lahaa intaa haddaan ka gudbo guud ahaan qabaa'ilka magaalo ku dhaqan gobollada waqooyi ee colaadu ragaadisay inay ka waantoobaan colaadaha soo noqnoqonaya dhaaraha soo noqnoqonayo la jabinayo ballanadaa laga baxayo ee inta la wada galo misena laga baxayo waxaa soo dhani waxay keenaysaa ama ay u muuqataa ama daliil u tahay ducful iimaan in iimaanku daciif yahay heshiisku siduu yahay waa in loo fuliyo meel walba qabaa'ilku waa inay saa yihiin fuliyaan intaasuna waa baaqa guud ee gobollada waqooyiga qabaa'ilada soomaaliyeed aanu ehelka iyo qaraabada nahayba ku saabsan intaa waxaa ii raacda maamulka waxaan ugu baaqayaa isaga dadka dee u maamula inuu ka shaqeeyo oo ka soo baxo maamulka waxa uu ku yahay ee uu maamulka ku sheegtay inuu ka soo baxo weeye aad iyo aad waxaan ugu baaqayaa culimada garaadada cuqaasha waxgaradka dadka ilaahay iyo rasuulkiisii garanaya inaan qabaa'ilka isdilaya aan mashaariic laga dhex raadina nabadgelyo lagu soo dabaalo